hadlayo dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ka socda dhacdo ugu ah weerar gabdhaha ama gaaba ah ku aan ka digi jiray ayaa farmaajo waxa uu ku qaaday xasan sheekh aadan gudoomiyihii hore baarlamaanka ah oo u dhow goobta mudaharaadka nabadda ah ay ka dhici lahaayeen ciidamadii dowladda qalabka dowladda waxaa loo adeegsaday dadkii ciidanka wax ka dhisay qalabka wax ka lahaa ciidamada xukumi jiray in looga faa'iidaysto oo weerar u qaado waxaan idin xaqiijinaa waa ibad qaba waa nabad qaba laakiin nolosha ilaahay waa baxsho qorshaha farmaajo maahay labadaas inay saacadaan loo yeelin hore ayaan u sheegay in gaalmadii 4 sano uu soo waday uu joojiyo oo uu kala fahmo mudaharaadka nabadda ah iyo cadowga bulshada iyo dadka iyo xataa dowladnimada laga celinayo waa ka xunna waxaan ugu baaqaynaa marka taliyayaasha ciidamada wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga ra-iisul wasaaraha in gardarrada iyo gacanka hadalka iyo weerarka iyo isku daygaa dilka la joojiyo mudaharaadka nabad ah laga hor wareego dadku ay sheegtaan waxa ay aaminsan yihiin weli cibaaradaynu waa nabad waa mudaharaad nabad ah waa waxaabilid waxaa la yaaba dowladda international community-ga ay maagabgaraynayaan oo cadowga ay leedahay aan iska celin karin in maanta international community-ga iyo goobjoogka ah ay weerarto waxyaabihii aadanu isku waafaqay mar hore inay xaq u leeyihiin xuquuqda aadanaha ka mid aha oo qofku siday la noqotin wax ku cabir ah oo mudaharaadi kara ah ma aqaan sida loo fasiri doono dowladnimada Soomaaliya ee cadowga laga ilaalinayo mar haddii doorashadiina la diiday dibadbixi nabadda ahana la diiday dadka ku dhawaaqana la isku dayay in la dilo annagu jidkaa baan ku soconaynaa Soomaaliya baan ugu baaqaynaa ciidamada soo weeraray waa naqaanaa tiradooda waa naqaanaa meelay kala yimaadeen waa naqaanaa amarkiisi loo sii waa naqaanaa waa mahadsantihiin